saaxiibayaal tani waxay ku salaysan tahay sheeko asal ah waa aabe wiilkiisii ka dhex raadinaya mid ka mida keymaha ugu halista badan ee dunida waana keymaha Amazon Charlie intaan muuqaalka u gudagelin waxaan si sharaf leh kaaga codsanaya inaad muuqaalka like saartid haddii aad awoodidna ku soo biir bartilmaameedka Masar Ducaysane mahadsanid qoys ayaa waxay u soo guureen oo ay ku mashquulsanaayeen soo guritaanka alaabtooda ee gudaha dalka Brazil runtii qofka sheekadan ee ku socoto waa aabe injineer ah oo lagu magacaabo Billy Markham waxaana sidoo kale weelisay xaaskiisa oo iyana lagu magacaabo Jean iyo sidoo kale labo wiil ah wiilka curadka waxaa magaciisa la yiraahdaa Tommy waxay degeen dhismo cusub saqafka sare markay joogeen aabe Billy ayaa waxa wiilkiisii weyna u tilmaamay halka xafiiskiisa ku yaal iyo goobtiisii shaqada waxyar kadib aabihi waxa uu qoyskiisii u kaxeeyay meesha uu ka shaqaynayay waana dhex bartamaha keynta halkaasi koox injineer ah ayaa dariiq waxay u sameynayeen biyo-xireenka iyo sidoo kale mashruuca deegaanka caruurtiisii ayuu tusayay qaabka u shaqeeyo maalinkii dambena Jean waxay meel yar ka samaysatay keynta halkaasi ayay qoyska iskaga damaashaadiyeen oo ay wax ku cunayeen wiilkii yaraana waxa uu raadraac ku sameeyay quraanjo gaayir intuu keynta dhex mushaaxayay koox qabiilo ah ayaa kor kala socday oo dhool cadaynaya markuu kuwa arkayna si degdeg ah ayuu Tommy dib ugu soo noqday qoyskiisa aabihi ayuu u sheegay waxa uu arkay labadoodii dib ayay meesha ugu soo laabtay si kastaba ha noqotay Tommy waxa uu ku guuldareystay inuu aabihi uu tusay dadka uu arkay isagoo aan ka warheen in qabiiladani ay isku qarin karaan caleemaha dhexdooda Billy waxa uu maleeyay in wiilkiisa uu ku ciyaarayo waxa uu dib ugu soo noqday halka hoygu ahaa balse waxa uu ka warhelay in wiilkiisa uusan soo daba socon waa uu u qeyla dhaamiyay wax jawaab ahna kama waa uu shakiyay dib ayuu meesha ugu soo noqday wax cunugaana waa uu ka waayay fallaar ayaana sidoo kale geedka lagu dhuftay taasoo xaqiijinaysa in hadda la afduubtay cunugiisa isagoo hadda ka warhelay in wiilkiisii uu khatar galay ayuu caawimo u dalbaday dhammaan shaqaalada kale kooxdiina waxay si diriqle u soo galeen keenta daqiiqada kadibna waxa uu aabihi ogaaday in wiilkan uusan si fudud ku heli karin waayitaanka cunugaasi waxaa hadda ka soo wareegatay muddo 10 sano ah ismihii biyo-xireenka injineerku waxa uu hadda ku dhow yahay inuu mashruuca gebagabeeyo laakiinse ilaa hadda ma helin weli cunugii uu jeclaa waxauna maalinkii dambe u yimaaday hay'ad samafal waxa uu halkaas kula kulmay wariye lagu magacaabo Owe waxauna uga warbixiyay halka caruurta Brazil lagu xanaaneeyo halka xaaskiisii Jean ay si mutadawacnimo uga shaqaynaysay macadyada agoonta ilaa hadeerna waxay rajo ka qabeen inay dib u helaan cunugooda kadib wariye Oome markuu arkay fallaartani waxa uu ogaaday in ilmahaasi ay afduubteen mid ka mid ah qabaa'ilada ku dhex nool webiga Amazon waxa uu tusay khariirada keynta waxauna sidoo kale Billy u diyaar garoobay socdaalkiisa saxafigan waxa uu ahaa mid aan naxariis lahayn waxa uu aaminsan yahay in hooyadani murugaysan ay ka samirto wiilkeeda isagoo u sheegay in wiilkaagii uu mar hore dhintay balse hooyadii waa ay ka soo horjeesatay dalabka waxa yar kadib labadoodii waxay doon u qaateen webiga Amazon si ay u bilaabaan safarkooda kadib waxay u soo dhawaadeen meel lagu daryeelo caruurta agoonta ah halkaasna waa ay ka waayeen cunugoodii yara markaasi ayaa la siiyey doon mustacmal ah oo u horsoodaysa mid ka mid ah hindida degta keymaha markay u yimaadeen dadkii hindida ahaa waxay u sheegeen dadka fallaatan iskale ma aha dad la garan karo waa dad ugaarsataa oo webiga dhex degan mana jirto meel cad oo aan idinku tilmaamay inay kooxdaasi ku nool yihiin sababtoo ah ma jiro qof xitaa garanaya halka ay ku haydaan dhanka kale gudaha keymaha waxaa lana tusayaa Tommy oo hadda noqday nin aad u weyn waxaana la barayay sida loo ugaarsado waxa uuna hadda ka mid noqday qabiilada la sheegayay odayga qabiilkani hormuudku ah waa oday lagu magacaabo Wandi waxayna ku dhex nool yihiin dhirta shimbiraha ayaana u sheegay inay khatar ku jiraan iyo in sidoo kale in loo soo dhow yahay waxay ka warheleen in qabiilada dadka cuna ay ku soo raajiraan keynta markaa sidii caadadoodu u ahayd caleemihii ayay isku dhex qariyeen halka Billy iyo Owen ay weli doontoodii ku dhex wataan webiga kadib Tommy iyo Wandi waxay dib ugu soo noqdeen tuuladooda caaqilkii waxa uu dadkii tuulada iskugu soo yeeray inay hadda dagaal u diyaar garoobaan oo ay la galayaan kooxda dadcunka ah daqiiqada kadib waxaa layna tusayaa Tommy iyo saaxiibkiisii waxayna ku dabaalanayeen meel biyo dhaca caruurtaana waxaana sidoo kale ka fogeen dumarkii oo halka ku kulumeysanaya waxaa ku jirtay gabar lagu magacaabo Kichari Tommy
toomina aad ayuu gabadhan uga helay odaygii tuulada ee waandi ayaana meel fog dhaqdhaqaaqiisa kala socday waxa uuna hadda ogaaday in toomi oo hadda noqday mid qaangaar ah uu sidoo kale xiisaynayo dumarka sida awgeed habeennimadkii markii la gaaray waxay bilaabeen dhaqankooda waana marka wiilka loo guurinayo waxaana markaasi jirkiisa oo dhammi ku qanqaniina dhammaan cayayaanada yaryarka ah iyadoo arrinkaasi looga dulleeyahay inuu u dulqaadan karo kuleylka Bew iyo Owina waxay sidoo kale soo gaareen meeshii biyadhac ahayd waana meeshii ay dumarkii ka dabanayeen kalluunka waxay ogaadeen in halkani la degan yahay waayo waxaa u taallay maacuuntoodii iyo alaabtooda tuulada dhexdeeda toomi waxa uu ku jiray xaalad halis ah sababtoo qof kasta marka loo guurinayo waxa uu keeni jiray shardi u khaas ah hogaamiye waandi ayaa markaasi ku xejeeyay toomi in haddii uu dhagaxaani keeno lagu darayo inanta kijaari toomi waa uu ogolaaday maalintii xigtay ee durdurka waxa uu markaasi gacalisadiisii ugu dhaartay inuu keeni doono dhagaxa halka iyana ay markaasi ka shakinaysay geesnimadiisa sidaa darteed isla markii waxa uu bilaabay hooshiisii si uu caddeeyo inuu yahay wiil karti leh Beeli iyo saxaafi Owina waxay shidayeen rashka si ay u soo jiitaan dareenka qabiilka sidaa darteed halkii uga imaan lahaayeen qabiilkii asalka waxa u yimaaday dadkii dadcunka ahaa iyagii halka ayaa lagu afduubtay waana la soo kaxeeyey waxaana loo keenay madaxa qabiilka waxay tuseen fallaartii hogaamiyihiina waxa uu bilaabay inuu ku qoslo iyo in sidoo kale uu ka caroodo isagoo markaan u maleeyay in kuwan ay ka tirsan yihiin cadowgoodii shisheeyaha sababtoo isma aysan fahmeen hadda waxay garwaaqsadeen inay khatar ku jiraan Beeli ayaa bilaabay inuu toogto mid ka mid ah dadkii cawaanka ahaa qayb ka mid ah markii halkii ku dhinteen hogaamiyihii waa uu ka warhelay in kuwan ay haystaan hub khatar ah caaqilkana aad ayuu ula yaaban yahay hubkani sida fudud wax u dilaya markii xabajoojinta sameeyeen dadkii kale ayaa isku dayay inay cunaan saxafiyiinta Beelina waxa uu isku dayay inuu meesha ka baxsado gudcurkii ayuu ku baxsaday isagoo rasaas iskaga reebay halka dhanka kalena toomi waxa uu si guul ah u gaaray biyadhaca waana barta asalka ah ee uu ka heli lahaa dhagaxa Beeli oo markaas iska socday oo u maleynayay in dadka ay ka hareen fallaar ayaa dhabarka lagaga dhuftay si uu naftiisa ula baxsado isna waxa uu bilaabay inuu hoos ugu cararo biyadhaca halka toomina waxa uu helay dhagaxii loo diray taasoo la mida inuu hadda guulaystay si lama filaan ah si ayuu u maqlay sharqanta Beeli sidaa darteed waxa uu bilaabay inuu isqariyo Beelina waxa uu bilaabay inuu rasaasiisi iskaga reebo kooxda cawaanta ah toomi waxa uu rabay in ninkan qoriga ridayo uu ku dhufto fallaarta si kastabaate waa uu ka labalabeeyey sababta waxa uu aqoonsaday in kani uu yahay aabihii taa beddelkeedii waxa uu bilaabay in qolyihii cawaanta ah uu ku weeraro fallaarta muddo kadibna Beeli muddo dheer oo sannado ah badan kadib waxa uu markii ugu horeysay hadda arkaya wiilkiisa intuu wiilkiisii ku mashquulsanaana Beeli fallaar ayaa lagu dhaawacay markaasi wiilkiisii toomi ayaa isku dayay in aabihiisii uu kooxda ka dabxiro waxayna bilaabeen inay maraan jid qarsoodi oo u dhaxeeya dhagaxa iyo biyadhaca halka qolyihii kale ee cawaanta waxay ku guulaysteen inay iyagu kala haraan kalabinkii injineerka markii labadoodii ka soo fogaadeen aad bay isku fiirinayeen maadaama wiilkani yaraa sanadihii hore oo dhan uu ku qaatay duurka markii xeebta u soo dhowaadeen Beeli waxa uu wiilkiisii weydiiyey inuu xusuusto hooyadii dhinaca kale hogaamiyihii waxa uu isku dayay inuu kula furfuro kaarbiinkii Beeli waxayna bilaabeen inay u dabaaldegaan hubkooda cusub waxyar kadibna toomi waxa uu aabihiisii oo dhaawacan dib ugu soo celiyey deegaankooda waandiina aad ayuu uga walaacsan yahay in qof shisheeye uu hadda ku soo biiray toomina waxa uu hadda ku guulaystay in gabadha loo guuriyo Beeli xaaladiisii waxay ahayd mid dhaawac ah waxaana loo yeeray dhakhtarka deegaanka si uu u daweeyo markuu toosay habeennimo saqdhaxa waxa uu waandi weydiiyey sababta uu wiilkiisii toomi uga qaatay sannado badan ka hor maalinimadii xigtayna toomi waxa uu aaday guriga ay degan tahay qoyska Kujaari waxa uuna tusay dhagaxyadii xurmada lahaa taasoo xaq u yeelanaya inuu hadda gabadha u kaxaysto gurigiisa balse waxaa dhaqan ahayd in gabadhan inta aan guriga laga kaxin ka hor marka hore ninka guursanaya waa inuu uleeyaa dhanka kale hogaamiyihii hore ee dadcunka waxa uu qorigii karabiinka tusay dilaal ka shaqeeya hubka sharci darada ah isagoo ka dalbanaya rasaasta hubkani si kastaba tee ganacsadihii waa uu ka diiday dalabkooda subaxnimadii xigtay ee biyadhaca Beeli waxa uu dib ugu soo laabtay wiilkiisii waxa uuna weydiiyey inay dib ugu noqdaan hooyadiisii dhashay si kastaba tee Kijaari ayaa hadda ku dhawaaqday in hadda wiilkan ay iyadu leedahay markaasi Beeli ayaa ka xanaaqay toomi
ayaa hadlay oo sheegay gurigayga mustaqbalka waa halkani. Inkasta oo uu injineerku arrinkaasi ka quustay, balse Wandi ayaa waxa uu markaas ugu yeeray inuu la dabaaldego. habeenkii markii la gaarayna waxaa dhacaysay maaweelada labadii hadda laisku guuriyey. Billy markuu ogaaday masiirka wiilkiisii waxa uu go'aan ku gaaray inuu dib ugu laabto qoyskiisa. Hogaamiyihii tuulada ayaa bilaabay inuu siiyo xumbac gaar ah halkii ayuuna ku suuxay. kadibna qabaa'iladii waxay dib ugu soo celiyeen goobtii uu ka shaqayn jiray. saacada kadib ayuuna miirsaday waxauna ogaaday inuu joogo biyo dhaca. maalintaasi kadib Jane waxay dib u timaaday guriga ninkeeda iyadoo hadda garatay inuu ka soo warhelay wiilkiisa. halka qabaa'iladiina waxay qiiq ku dhex arkeen kaynta waxayna ogaadeen in deegaankooda khatar ku jiro. markaasi qabiilkani waxay go'aan ku gaareen inay difaacdaan dhulkooda. Tommy iyo saaxiibkii markay dib u soo laabteen waxay ka war heleen in qabiilkii jidka lagu soo weeraray waxaana laga kaxaysay dumarkooda. Tommyna hadda waxa uu go'aan ku gaaray inuu weeraro dadkaasi, balse hogaamiye ayaa marka hore sheegay inay sharfaan dadkoodii dhintay oo marka hore iyaga la aaso. intii kale ee badbaadi ayaa hadda go'aan waxay ku gaareen inay soo badbaadiyaan dumarkooda. waa ay soo raadgaleen. intay dhulka marayeen ayay ogaadeen in deegaankii la xaalufiyey. habeenkii markii la gaarayna qabiilkii waxay ku dhibaatoonayeen inay ka gudbaan xayndaabka. sidaa darteed mid iyaga ka mida ayaa isku dayay inuu maro dhanka iyo fiilooyinka. si kasta baatay khadkii korontada ayaa ku dhegay halkii ayuuna ku dhintay. dadkii kalena markay maqleen sawaxanka qabiilkana ayay bilaabeen inay hubkooda soo qaataan. waxayna sidoo kale u yeereen qabiiladii hore oo hubka doonayay waxayna go'aan ku gaareen in la soo ciribtiro. qolyihii ee koomaha iskaga jira waxaa soo weeraray qabiiladii dadxunkaha kuwaas oo hadda la hubeeyey. xabadihii rasaasta ee la ridayeen waxay halkii ku dhaawaceen hogaamiyaha qabiilka ee Wandi. Tommyna waa uu u arguday waxauna isna halkii ku dhaawacay hogaamiyaha kale. dhowrkii kale ee badbaaday ayaa bilaabay oda Wandi inay meesha kala cararaan. Wandina waxa uu ka baryayay raggiisii inay naftiisii u xereeyaan sida awowayaashoodoo kale. Tommy waxa uu hadda garowsaday in qofka kaliya ee caawin kara uu yahay aabihii. isagii saaxiibkiisii ayaa ordayay. wakhtigaasna kaymuhu waa ay gubanayeen. waxayna yimaadeen cirifka jasiiradda halkii ayayna doon ka xadeen ilaa ay ka soo gaareen magaalada. waxay dib ugu soo laabteen odaygii xanaaniinaya carruurta agoomaha ah. odaygii markuu carruurtii soo qariyay ayay weydiiyeen halka ay ka heli karaan Billy, balse nasiib daradaasi odaygaasi wax macluumaad ah kama hayn. Tommy habeennimadkii markuu halkii iska seexday shimbirtii dadkan u shaqaynaysay ayaa waxay u soo ogaatay halka uu degan yahay. isna waxa uu xasuusay meeshii uu horay ugu noolaan jiray. wax yar kadibna waxay soo gaareen dhismaha. waxa uu markaasi bilaabay inuu ka fuulo balakoonka waxauna soo gaaray qaybtu aabihii deganaa. aad buu u naxay markuu sidoo kale gurigaasi uu ku dhex arkay hooyadii. kadibna sidoo kale aabbahoodii ayay soo heleen. dibna ayay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan qabiilka. bannaanka gurigii Tommy iyo saaxiibkii waxay markii hore halkii ku dileen waardiyaha. markaasi waxay iska hormariyeen mid iyaga ka mida si ay aag u soo jeekinto. waxay gabadhaasna halkaasi ku aragtay Tommy xaaskiisii Kichari. nasiib wanaagsan intaan waxba loo geysan Tommy ayaa meesha imaaday oo halkii ku dilay dambiilaha. isaga iyo xaaskiisii Kicharina dib ayay u midoobeen. waxayna bilaabeen in sidoo kale dagaal ay ku soo qaadaan cadowga kale. Billy ayaana xoreeyey meeshii ayayna ka baxsadeen dadkii reer guuraaga ahaa. isla mar ahaanta qabiilkii ayaa iyana meesha yimaaday waxayna bilaabeen inay ceersadaan dadkii kale. labadoodii keynta ayay isku dagaalayeen. Billy oo qori watay ayaa halkii waxa uu ku toogtay hogaamiyaha qabiilka dadxunka ah. halkii ayayna iyana fursad u heleen inay halkaasi kaga baxsadaan. Billy wiilkiisii ayuu soo macasalaameeyey oo uu isku duubay. ugu dambayntiina waxa uu dib ugu soo laabtay isaga magaalka. wax yar kadib Billy oo kormeeraya dhismaha waxaa loo sheegay inay soo socoto duufaan xoogan. kadib asxaabtiisii injineerada ayaa waxay ku wargeliyeen in biyaha soo socda ay ka badan yihiin biyo-xireenka. dhanka kale ee qabiilkii ayaa la ina tusaya. Tommy ayaa noqday hogaamiyaha qabiilka waxayna bilaabeen inay deegaan ka samaystaan isla kaymaha. dhammaan shaqaalihii dhismahana waxay bilaabeen inay iskaga fogaadaan goobta halka Billyna uu si dhuumashaha u soo galay biyo-xireenka. gidaarkii biyo-xireenka ayuuna ku dhejiyey walxaha qarxa. markaasi daadkii weyna ayaa bilaabmay oo halkii ku jebiyey biyo-xireenka. runtii biyo-xireenku waa uu burburayay. injineerkuna waxa uu isagoo ilmeynaya daawanayay qorshihiisii oo ka burburay. laakiinse hadda waxa uu qirsan yahay inuu badbaadiyey qabiilka ku nool kaymaha. Tommy iyo Kichari waxay daawanayeen tolkoodii oo ku ciyaaraya isla biyaha webiga.
waxa uuna isaga hadda go'aan ku gaaray inuu halkani noloshiisii ku sugnaado. saaxiibayaal tani waa dhammaadka muuqaalkeena maanta. kow magac dhammaadka insha Allah aan ku arko muuqaalka geesciga ilaa idinkii mahadsanid.